السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا دكتور يوسف كسر دوادا برنامج كدير رجال عافيمات فيديو كم وحن كهالليا ومحي سبب تدك قاركود أي بوست ويهين كدب مركا أي قاتان تلالك كوفيد 19 كا يجو تلالك قاتي أي حضرنا أي وح أيهين بوستيف أيهين تم وحن كلا قادنا laba ama saddex qaybood oo sababa inuu qofku noqdo positive isagoo oo talaalka qaatay xogta la hayo talaalku ma joojin karo in uu fiditaanka fayraska haddii aad qaadato marka aad tahay aan lahayn wax calaamad ah dadka qaar ayaa ah qaba fayraskii oo jirkooda uu ku jira laakiin ay gudbinayaan wax calaamad aan lahayn wayna gudbinayaan dadka noocyadaas oo kale wali jirkoodii ku jira talaalka kadib haday qaataana positive ayyihiin xanuunkiina way gudbinayaan talabaad ayaduna tan saacidaysa waxa weeye sida la og yahay virusku had iyo jeer wuu isbedelaa foomkiisa ayuu bedelaa sidii ama dabeecadihii iyo wixii lagu yaqaanay ayuu iska bedelaa oo si kale ayuu noqdaa taasina waxay ka saacidaysaa in uu viruskii markuu foomkiisa isbedelo uu weeraro had iyo jeer qaybta marka uu immune ama difaacu jirku uu aad u hooseeyo difaaci jirku uu hooseeyo tusaale ahaan oo kale dadka difaacooda hooseeyo waxa ka mid ah dadka waaweyn ama dadka had iyo jeer xanuunada la nool ama dadka stresska oo kale xilliga stresska qofku ku dhaco difaaciisi ay hoos u dhaca difaaci jirkiisa hoos u dhaca waana xilliga hadduu difaacagu hoos u dhacana way fududahay in uu fayraskii ku soo weeraro jirkaagii uu waxyeeleeyo ayaduna waxa qayb ka qaadata talaalka had iyo jeer dadka qaarkood si fiican uguma shaqeeyo maxaa yeelay difaacooda ayaa difaaci jirkooda ayaa daciif ah oo impaired ah dadka kuwaas oo kalena si fiican uguma shaqeeyo marka fiidiyowga intaasan kusoo koobinaa weeno iyo kulantan dambe